marabtaa in alla subxaanahu watacaala arrimahaaga kuu fududeeyo, murugada uu kaa qaado, kurbada uu kaa qaado, uu ku caafiyo, oo arrimo walbo khayrna ilaahay subxaanahu watacaala kugu aadiyo, dhibaatada kaa qaado, noloshaada ilaahay kuu barakeeyo, xoolo fara badan ku siiyo, himilooyin iyo hadaf badan aad leedahayna uu ilaahay subxaanahu watacaala kuu rumeeyo. intaanba waxaa lagu helaa saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan qaabka ama siiqada ibraahimiyada. waxaan idinla wadaagi doonaa walaalo fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey arrimahooda markii ay akhriyeen saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. qisooyinkan markii aad dhegaysatay kadib waan filayaa qisada ku xigta qisadaada inay noqon doonto biidnillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalaha khayrka jecel ee inagu xiran, kusoo dhawaada qisaskeena ku saabsanaa dikriga iyo xasuusinta alle subxaanahu watacaala. qisaskeena maanta waxay ku saabsan yihiin saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan ibraahimiyada. qisadeena ugu horeysa waxaa inooga sheekeynaya wiilkani wuxuu leeyahay waxaa haysatay murugtaas waxaan isleeyahay bini aadan iska dhaafee weligaa waad ka bixi doontaa ismaan lahayn, yacni cid wax ka qaban karta ma jirto ilaa alle subxaanahu watacaala mooye. wuxuu yidhi markii aan adkeysan waay oo dulqaadan waay ilaahay subxaanahu watacaala ayaan baryey. waxaan akhriyay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan waxaan u akhriyay siiqada ibraahimiyada. ilaahay subxaanahu watacaala murugtii iyo kurbadii haysatayba si degdeg ah ayuu iiga qaaday. qisadeena xigta maanta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri markii aan bilaabay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, ilaahay kurba ii haysay ayuu iga qaaday. sidoo kale waxaan noqday ayay tiri qof ducadeeda la ajiibo, qof mustajaabu dacwa ayaa noqday oo waxay ilaahay weydiisataba ka hesho. alxamdulillaah, waxaan dareemayaa ayay tiri inaan noqday qof alle subxaanahu watacaala u dhow. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaya wiilkani wuxuu leeyahay daymo fara badan ayaa la igu lahaa. waxaa la joogay maalin jimco ah, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbigayga soo geeyey inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. wuxuu yidhi daymaha la igu leeyahay mar walba waan ka fikiri jiray siday u badan yihiin, yaa kaa gudi doono, yaa kaa magi doono daymahan. maalin walba iyo habeen walba waxaan ka murugi jiray bal haddii aad dhimato maanta ka waran, waayo deenta waa halis ama xoolaha uu qofka kugu leeyahay haddii aad la dhimato waa halis oo waxaa lagaa rabaa in deenti lagaa gudo, yaa kaa gudi doono. wuxuu yidhi aad ayaan u walwali jiray, waxaan ka walwali jiray markii aan dhinto, intaan noolahay waaba noolahaye yaa kaa magi doono, aniga ma haysanin xoolahan isaga mogo. maalin jimco ah ayuu alle subxaanahu watacaala qalbigayga soo geliyay inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. umaan aqrinin inuu ilaahay deenta iga gudo, laakiin waan iska akhriyay. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iheleeshiyey. saliga nabiga ayaan ku celceliyay ayuu yidhi anigoo masaajidka fadhiyo, allaahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. qaabkaas ama siiqadaas ibraahimiyada ayaa ku celceliyay ayuu yidhi anigoo masaajidka fadhiya, dan gooni ah iyo arrin gooni ahna uma niyeysanin. wuxuu yidhi jimcadii aan akhriyey jimcadeeda kale lama gaarin ilaa ilaahay deentii buu iga guday. meel aanan filaynin iyo qof aanan filayn ayuu alle subxaanahu watacaala iga siiyey, sidii ayna deenti iga gudmatay. haddaba saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan yowmul jumca ama maalinka jimco, asagoo maalin walba fadli badan yahay haddana maalinka jimco kuma sii jirto. ilaahay subxaanahu watacaala kurbooyinka ku haysta iyo meesha aad ka kurbaysanta ayuu kaaga qaadaya, xitaa haddii aadan arrin gooni ah u niyeysanin. qisadeena xigta wiil ayaa inagu sheekeynaya. wuxuu yidhi waxa ay dhibay dad ayaa ay dhibaateeyey. dadkaas waxay ahaayeen meeshaan ku noolahay dad iiga awood badan. dadkana waxay ahaayeen ayuu yidhi 3 qof aad ay mar walba ii dhibi jireen, way i dhibaateyn jireen ayuu yidhi. aniga meeshaan ku noolahay qariib ayaan ku ahaa oo dadkaygii ma joogin. waxaan bilaabay ayuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala inaan ku dacweeyo oo aan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam oo aan dhaho ilaahayow dadkan shartooda iga qabo, khayrkoodana isoo xiji. xitaa maanan habaarin ayuu yidhi, waxaan idhi ilaahow dadkan shartooda iga qabo, khayrkooda isoo xiji. maalmo kooban kadib baa waxaan arkay ayuu yidhi dadkii oo ilaahay subxaanahu watacaala uu bedelay oo dad kala noqday oo aniga i jecel oo i soo dhaweynayo oo
iga cudur daaranaya wuxuu yiri waxaan la yaabanahay sida isku bedeleen ismaan lahayn bini aadan ayaa sidaas isku bedelayo alxamdulilah maadaama dadkaas dadkoodii ay magaalada deganayeen inay noqdeen dad jecel oo aniga qalbigooda uu ii soo jeestay waxay noqotay in dadkii magaaladana ay ii soo jeestaan oo aan noqdo qof laga heebeysto oo aan noqdo qof dadkaas dartooda loo tixgeliyo alxamdulilah ayuu yiri qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynayaan gabadhaani waxay leedahay waxaan ahaa hooyo ilma haysato ilma laygu furayaan heesayay tiri aabahood wax fiican ima siineynin marmar xaaladaha aad iigu adkaan jira ayay tiri maalintan waxba maan haysanin mana ahayn dadka jecelina dad wax weydiistaan oo qof markii aan wax weydiisanaya aad ayaan u dhibsan jiray maan jeclaan jirin waayo qof ayaad weydiisatay wax inaad ka heli doonto inaad ka heli doonin ma ogid maalintaas wuxuu qalbigayga soo galay tiri inaan isdhaho bal ilaahay subxaanahu wa tacaala ma baridid alla agtiisa ayaan waxba laga weynin ilaahay ayaan baryay tiri ducadeydana waxaan ku bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan siqada qaabka ibraahimiyada markii aan ducada dhamaystayna qaabkaas ayaan akhriyay tiri isla maalinkii habeenkii lama gaarin galabkiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isiiyay xoolo aanan filaynin yacni wax markaad filaysay markaad filayn waa kala labo waxay tahay subaxaas waaga wuxuu inoo bariyay anagoo fuqara oo waxba haysanin habeenkiina wuxuu gabalka inoo dhacay anagoo hanti heysano maasha Allah subaxaas waxaan la'ayn wax aan dabka ku shidano laakiin habeenkii markii la gaaray waxaan haysanay waxaan dhowr maalin dhowr bil ba isticmaali karno alxamdulilah waxay tiri niyadeyda marka hore waxaa ku jirta inaan dadka wax weydiisto laakiin maadaama aan ahaa qof necab inay dadka barido ama wax weydiisato ilaahay ayaa igu aadiyay inaan isweydiiyo haddaad ilaahay wax weydiisato كنزيسا وبوحاي ميات كوانيسا ومايا سداس أين الله سبحانه وتعالى كبريا إيتري وحان أقريي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحان أخريي سيقظة مقابك إبراهيمية ذا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هدي أدربت إن إلهي كربوينك كهقاذا إن إلهي دعوينك هذا أجيب إن مراد والبعض لذهي إلهي كوفو ذيو مركز إلهي بريس وكهر مريس صديق النبي صلى الله عليه وسلم نغدي مريس صديق النبي صلى الله عليه وسلم وحاك الله سمين كرتينات كحل على صديق النبي صلى الله عليه وسلم بقول مرلبا بقول سدح بقول كن إلا أنت يود هذا تهي أود أذيك أود بإذن الله إلهي وحد ربطه وكسينا يا وما تنسين خير رجع القصص كان صديق النبي مانتا هلكاي نوجهين والسلام عليكم.